waxaa igu cajiib badnaa usbuucii hore aan soo dhaafnay ayaa la ii keenay wiil aad u xanuunsan oo riska xaaladiisa ay yani khatar tahay. wiilkii kolkaan qur-aanka ku aqriyay aabbihiisa ka dhex qayli qaar baan wacaayo anigu aan iraahda war canugaasa ila jooga adi ma dhalin ahaa u soo ducee oo ilaahay ogyahay oo hooyada ay fadhidahaa oo maarata asagii uu ka dhex qaylinayo waraadaa ka dhex qaylini ama halkuu imaani ama markaasuu ilaahay baryo u soo ducayni. marka waxaa weeye dhibkaas waa jiraa, dhibkaa aad buu ugu badan yahay wadanka, weliba had yurubtan waa wareega anigu waa kulli wada noocaas ilaa ingiriiska sidan wey. aniga qofkii ugu horreeyay sheegaa tahay in aabbaha ishiisa ay qaban karta carruurtii iyo naagta kala tageen. lambar koow waa hooyada oo cuqubada hooyada haddii lagama kaco, laakiin hadda wadankan aan joogna hadda waxaa dhibka haysto carruurtan. waxaa lagu leeyahay ninkan waa master, ninkan waa jaamici, ninkan waa sidan, gabadhan waa dhakhtara digtoorada weeye, waa kan way xanuunsaadka la keenay wax markaad xaq iyo xagga ka marto meel laga hayo ma garanaysid. kolkii dambe waxaad arkaysaa in oo odaga dhinaciisa laga haysto. su-aashana muhiim waa inaan ku weydiiyo haddii ay jirto norway sharci baa lagu sameeyey, xafiis baa la furay, waa lagu aqoonsan yahay, daawooyin iyo wixii diinta iyo dhaqan iyo wax lagu daaweeyaa keentay, kutubkii ilaahay baa dadka ku daaweysaa. ma jirtaa marmar qofka u baahan yahay in wax lagu dhufto la garaaco? ma jiraan qof ama dharbaaxo lagu dhufto ama xoog lagu celiyo ama ma jiraan, ma la isticmaalaa method? maya, taas uma baahna. qofka wuxuu u baahan yahay in la caawiyo, waayo qur-aanka ilaahay waa mucjiz. kolka qofka qur-aanka lagu aqriyo wuu istaagayaa oo wuxuu maaragtay inuu istaago inuu yar marka xogaa in la caawiyo oo dadkii marka mas-uulka ka ahaa qofkaa waday inay caawiyaan baa loo baahan yahay keliya. fasha iyo garaac iyo waxaas ma jiraan. dadka kula soo xiriira marka hadda caasimadeen joognaa Oslo, dadka kula soo xiriira xagee ka kale ma Oslo ugu badan dhibka dadku haysta mise gobolada iyo meel kasta waa daaweysan? maya, Oslo waa u badan, laakiin goboladana way ka imaadaan. dad ka imaado Sweden iyo sida Ingiriiska oo kalena waa jiraan. qaar hoteelada jiifa qaab maaragtay eheladooda la jooga ayagana waa jiraan, ma badna, laakiin waa laga imaadaa. Faransiiska iyo waa laga imaadaa. sheekh la yaqaano magaalada degan, sheekh Axmed Macalin Xuseen, hadda magaalada laga yaqaanaa, halkan culimo kalena waa joogaan, dad badanaa degan oo diinta ku fiican oo masaajidada kala joogo, qur-aanka iyagana sidoo kale akhriya. ma tashataan oo misogtihiin shaqada qabato ma kaa caawiyaan? xiriir ma leedihin? sheekh culimada anigu waan jeclahay, iyagana way jecel yihiin, waad ogtahay, oo kulley adiga naftaada. marka culimada aad baan maaragtahay xiriir fiican yaan leenahay. dadka aan daaweeyaba hataa ayaga iyo ehelkoodaba ka mid ah.